doomaha jabinta godoominta gargaarka qase ee lagu magacaabo flotilla oo la wariyay inay gaarayaan 50 doomood oo ay saaran yihiin dad ku dhow 500 oo qof kuwa oo ay ugu magac weyn yihiin gabadha isbedelka cimilada u dhaqdhaqaaqda ee Swedishka Greta Thunberg siyaasiyiin Talyaani ah mas'uuliyiin Turki ah iyo dad internetka caanka ah ayaa la warinayaa inay wajahayaan wax loogu yeeray isku dayadoodii ugu dambeeyay ee jabinta xayndaabka gaajada rayidka qasa doomahan oo wax ka yar 200 kiiloomitir hadda u jira qasa ayaa lagu soo waramayaa inay la kulmayaan isku dayadii ugu dambeeyay ee Israel doonayso inay ku fashiliso si la mid ah sidii ay u fashilisay doomo gargaareedyadii hore ee bilihii June iyo July ee sanadkan wararku waxay batabiyeen in xadbadeedyadii lagu beegsaday kuwii hore isla kuwana lagu hujuumay qayb ahaan iyadoo maraakiib aan leyr lahayn iyo diyaarado drone ah oo u soo dhawaaday sababeen inuu khalkhal galo isgaarsiinta doomaha qaybtood dalalka Spain iyo Talyaaniga oo ballan qaaday inay ku darayaan maraakiib ciidan oo ilaalisa doomahan ilaa inta ay ka tagayaan ayaa sidoo kale la tabiyay inay ballanqaadkaas ka baxeen oo sameeyeen wax loogu yeeray xagal daacin kadib markii isla shalayba maraakiibtani isaga hareen safarka doonyaha tanise ma hor istaagin in kooxaha gargaar wadayaashaasi wataan safarkooda geesinimada leh kaasoo natiijadiisu dunida badankeed ka warsugayso lana rajaynayo inuu saacadaha soo socda cago dhigto qasada Israel gaajada baday ee bulshadeedu marka madaafiicda laga yimaado baahida u dhimanayaan bilowgii ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa ku baaqday in safarka gebigiisaba la joojiyo iyadoo sheegtay macquulnimada in safarkani carqaladeeyo heshiiska Mareykanku soo jeediyay ee joojinta dagaalka qasa baaqaas ma dhageysan u qareemayaashu oo waxay doonayaan inay midkood dunida tusaan inay nabad ku tagaan qasa oo ay kaalmeeyaan dadka Falastiin ama beegsigoodu noqdo talaabo kale oo adduunka tusta arxan laawanimada Israel docdeeda ma sheegan isku dayada khalkhalgelineed ee socdaalkan gargaar hayeeshee waxay marar badan ku celceliyaan in flotilla tahay qorshe ay abaabulkiisa leeyihiin xogaga iska caabinta Falastiin taasoo adood ay ku banaysanayaan dhibaataynta doomahan isku dayaya inay jabiyaan godoominta cunto ee dadka qasa caqabadaha kale ee kacdoonkan gargaarku wajahayo waxa kamid ah in warbaahinta qaar ee Israel taageerta baahinayso inay dadka wada uga guleeyihiin inay magac uun ku helaan waxaase tan beenisay Greta Thunberg oo damiir xumo ku tilmaantay in nafurnimada kooxahan magac raadis loogu yeero rajada la wada sugayo ayaa ah in doomahani ugu dambeyn ka talaabaan godoomin badeedka Israel oo bulshada qasa gaaraan taasoo noqon doonta taariikhi iyo talaabo soo dhaweynaysa in albaabada gargaarka ee qasa si rasmi ah u furmaan